السلام عليكم وعن صاحب يال الصباح وناكسن ساكي waxaan idin kala soo hadlayaa magaalada Cape Town saaka jawiga uu degan yahay wax qalaasa ah ma maqal balse wali ma jiraan gaadiidka dadweynaha ee loo yaqaan caasiga kuwaas oo shaqo joojin ku dhawaaqay muddo 5 maalin ka hor ah sidaad arkaysaanba Cape Town ama xaafadda Soomaalida ee Belfel jawigeeda aad ayuu degan yahay inkastoo wali ay tahay 8 subaxnimo haddana gawaarida caasiga sidaan ognahay waxay shaqada bilaabaan 10kii wixii ka horeeyo ama 4 saac oo habeen 10 saac habeenimo ama 4ta qofka sidoo yaqaano jawi aad ayuu degan yahay wax dhibaato ah iyo buuq ah oo aan maqalin ma jiraan laakiin wali waa quiet oo gawaari shaqeynayso caasiga ma jiraan sidaad ka arki kartaan wadadan weyn highway-ga ah وشنتي مالين ugu dambeysay xaaladda Koonfur Afrika ayaa sidaan ah saaxiibayaal halkan aan joogno wali waa xaafadda Soomaalida ay ka degan tahay Biyaabal xaaladdeeda runtii aad ay u degan tahay hadda wax dhibaato kama jiraan inkastoo aad arkaysaan ciidamo booliis oo halkaas taagan oo runtii bal indhaynaya xaaladda halkan waa masjidka sunna oo ka mid ah masaajidda ugu weyn ee xaafadda Soomaalida Belfel حالد آد أيو دقنتها إن شاء الله وحن رجينا إن سيدا أو دقناته صاحبي سيدا دي شيء قبل هالكان وحافظة Soomaalida ka degantahay magaalada Cape Town ee lagu magacaabo Belfel aan runtii aaminsanahay intiin aan wadanka joogin xitaa inaad garanaysaan halkan runtii xaaladdeeda aad iyo aad ay u degantahay inkastoo wadanka ay ka mid tahay oo cabsida ay ka jirto ama dadka ganacsatada ah ay halkan degan yihiin qaarkoodba cabsina ay jirto balse hadda wax dhibaato ama amni darro ah kama jiraan waxaan rajaynaynaa insha Allah inaysan ka dhicin balse dadka la dhibaateynayo runtii waa dad Soomaali ah ama ajaanib nooc doonaba ha ahaadaan oo lagu dhibaateynayo goobo kala duwan oo ka tirsan magaalada Cape Town isku day doonaa bal inaan wareysto dad kamid ah dadka halkan ku nool iyo sida bal u dareemayaan xaaladda kacsanaanta ee ka jirta wadankan isha ku haya muuqaalkan saaxiibayaal sidaad u jeedaan halkan waa xarunta ugu weyn ee caasiyada Belfel sidaad arkaysaan xaruntan hadda wax caasiya ma taagna marka laga reebo gaarigan loo yaqaan Golden Arrow oo isagoo aan ka mid ahayn caasiyada iyo dadka mudaaharaadayaasha ah saaxiibayaal hadda halkan aan dhex marayo waa xarunta Shoprite-ka ee ugu weyn Belfel oo runtii xilliyadan oo kale ah meel aad iyo aad u zaxmad badan balse maanta sidaad arkaysaan jawigeedu yahay mid aad iyo aad u degan oo wax kasta ma aysan joogin حرنت هذا تعرف تدقيس نكر إلى هوس واحد دقيقة وكجيرة ملحن sababtan waxay tahay kaliya dadkii ma jiraan wax caasiya ah oo biyaal ah oo shaqeynaya dadka Kenya si u adeegataan ama u soo aadaan waxyaabaha kale ee uga baahan yihiin halkan
waa xarun wax walbo aad u baahan tahay laga heli karo marka laga reebo nafta wix kale oo ka soo haray laga heli karo xarunta waxay ku dhex talaa xaafadda Soomaalida ee loo yaqaan Belfel halkan ayaan isaga soo baxnay muddo 2 daqiiqo iyo ka badan oo aan ku dhex lugeynayay waan saaxiibayaal saakay jawigu waa sidaa aad arkaysaan jawigu aad ayuu qurux badan yahay marka laga reebo suuq la'aan haysa dadka ganacsiyadan leh oo runtii shalay sidaan oo kale albaabada furay balse saacaddu markay ahayd 9 ama 10 ama 11 subaxnimo iska xiray sababo la xiriira dad la'aan balse maanta waan arki doonaa haddii jawiga sidaas uu ka bedelmo iyo haddii sidii shalay uu kale oo ahaado halkan ayaa saaxiib wixii akhbaaray iyo wixii cusub ku daawo doontaa insha Allah halkaas iyo sidaa iyo nabadgelyo waxaan rabaa wax yar oo kaftan inaan u diro Soomaalida kale ee ku nool Afrika gaar ahaan Soomaalida ku nool Kenya ee ayagu deegaanka ka dhigtay xaafadda Islii runtii waxaan rabaa bal inaan idhaho halkan waa xaafadda Soomaalida ee Belfel oo Cape Town ka tirsan sidan ay qurux badan tahay isla markaana uu nadaafad badan tahay kale xaafadda Isliina waa wada naqaanay Soomaalida leedahay oo runtii maxaa la yiraahdaa Soomaalida oo ka haystaan ganacsiyada ku haystaan Belfel ganacsiyo ka waaweyn runtii sidan uma dayactiro oo ma qurux badna marka waxaan idin dhihi lahaa bal ku dayada Belfel haddii aad tihiin reer Islii waa kaftan iyo qaata